godkan hadda idin muuqdo dhalinyarada xaafadan degan aad iyo aad u yaqaanaan waxay leedahay jaranjaro waa caadi oo gale hadda saa arki kartaan yarkaas sii galaayo fanaanada madow wato meeshaan meel hoos loo degmay leedahay ma laga sii bixi karaa marka laakiin meeshaan waa la arkaa okay ma gali karaa okay waxaa barooweynaya bartaan inaa galo waxaa soo fiirinaya godkan magac oo qaas ma leeyahay oo loo yaqaan ya godka walaalka gaawa okay godkan wuxuu noqonayaa markii ugu horreysay nolosheeda ee aa galo marka waxay ii noqonaya qayb ka mid ah historic oo xubsi doono waxay hogaaminaya qaar ka mid ah dhalinyarada xaafadan godkan I may ever ma galin today is my first day aan godkan booqanayo waxaa rabaa inaan soo arko jasiiradda yareed oo aan idin leeyahay jasiiraddan waxaa ku dabaasho ragga qaybta dumarkana waa xagga marka xoogaa markaa geliyeed waxaad dareemaysaa wax yar oo fiir ah laakiin maadaama layga horeeyo ma dareemi dooni wax kaleeto oo fiir ah okay dadku waa soo galay kaasa xoogaa dhalinyaradu way iga horeeyaan meeshaas waxa idinkaga muuqanayo waa biyaha badda waayo oo hoos ku soo galaya okay ma laga sii bixi karo soomaan aad iyo aad assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhammaan asxaabta ku xiran janaalkeena Somgold Wafis mar kale waa idin salaamnay salaam kadib maanta waxaa ku suganahay xeebta Curubo saad muuqaalka ka aragtaanba waxaa rabaa halkan inaan ka sameeyo follow yar ama muuqaal as historic ah muuqaal as historic koos waxay salaamayaan qaar ka mid ah asxaabta ama dhalinyarada goobtan marka waxaa rabaa inaan idinkaga sameeyo halkan muuqaal yar oo xiiso badan oo noqon kara mid historic ah sidaas darteed muuqaalkan intuusan idin soo garin inaad janaalka kusoo birtaan subscribe sidoo kale tan muuqaalkan soo gaaro intaas kadib meeshaan hadda aan ku suganahay muddo ka hor waxay ahayd meel aad iyo aad u san badan ama xoogaa jajaban laakiin hadda saa muuqaalka kaarta kartaanba gadaasheeda ama guud ahaan zoonkan waa meel aad iyo aad u qurux badan nadaafadeeda laga shaqeeyey horumarkeedana laga shaqeeyey buildingkana aad iyo aad loo qurux badiyey sidoo kaleeto hadda jamalkan aan saaranahay saafilaha waxaa loo yaqaanaa jamalka xuseenka masaajidkan dhowrkii ka muuqdan waxaa loo yaqaanaa xaaji cali soo sax ma adinka waxay tihiin dhalinyarada xaafadda aad iyo aad wanaagsantihiin marka waxaa rabaa guud ahaan inaan muuqaalka ka sameeyo goobtan hadda aan taaganahay oo ka bilaabanayso xuseenka masaajidka xaaji cali sidoo kaleeto waxaa gaari doonaa goobtaas hadda gadaasheeda ka muuqato oo iyadana loo yaqaano geel laqe marka positionkan dambe hadda ka muuqdo gadaasheeda iyadana waxaa loo yaqaanaa goobta ay ku dawaali jireen ragga koos qaybtan ragga ku dawaalinayay qayb kaleeto xagga jirto ay ku dawaali jireen ayagana dumarka saa arki kartaan waxaa jiro dhalinyarada xaafadda qaar ka mid ah ama dhalinyaro kaleeto oo deegaano kaleeto ka imaadeen si halkan ugu samaystaan kalluumaysi weliba kalluumaysiga nooca ugu horeeya oo bilowga oo loo yaqaano hook and line oo ah xarag ama fiilo iyo makaalin ayagoo halkan ka gaadayo kalluunka loo yaqaano kalluun qareed ama kalluun guri afka qalaadna lagu yiraahdo demersal fish waa kalluumada kuwa ugu qaalisan uguna caafimaadka badan halka wadamada qaar ama wadamada Yurubta ah oo loo isticmaalo daawo ahaan dhaqaatiirta mararka qaar marka lagu beero kala dhiigaada iyo maxaa la walba beeritaan amarka waxaa lagu qorayaa qaar ka mid ah kalluunka loo yaqaano kalluun guriga asaga waxaa lagu leeyahay soo isticmaal bartaan hadda idan muuqato waxaa idan muuqdo oo wafis ama hirar hir waa la yiraahdaa sidoo kale dadka qaarna waxay u yaqaanaan mooy dadka qaar waxay u yaqaanaan magacyo kale koos janaalka waxaa ku xiran qaar ka mid ah asxaabta oo dibadaha jiro ama diaspora ah afka ku hadlayo oo ku adag yahay qaarkood inay si fiican u fahmaan marka jamal waa la yiraahdaa mooy waa la yiraahdaa sidoo kale maxaa kale loo yaqaanaa hirka meesha ka caayo hir ay mooy iyo maxaa kale may jamalkan asaaranaha waa shacaybow hirkan meesha ku dhacayo hir iyo mooy iyo maxaa kale loo yaqaanaa aad iyo aad kan iga maqnaa wuxuu ahaa mawjad saddexdaas waa loo yaqaanaa mawjad mooy iyo hir marka saddexdaas eray midkood waa ku fahmi kartaan marka
bartaas gadaasheeda waxaa ka muuqanayo kawaanka malaayga ee degmada Xamarweyne marka waa soconeynaa sidoo kale degmadan waxaa ku dhigan degmada Shingaani dadka qaar waxay isku qaldaan degmada Shingaani iyo degmada Xamarweyne waxaa jira laami kala qaybiyo waxaa rabaa inaan idin tusiyo YouTube ku soo biiro waxaa ku qoran Some Gold Waves Somali Gold Waves wala soo gaabiyay Some Gold Waves Some Gold Waves godkan hadda idin muuqdo dhalinyarada xaafadan degan aad iyo aad u yaqaanaan waxay leedahay jaranjaro waa caadi oo gale hadda saa arki kartaan yarkaas sii galaayo fanaanada madow wato meeshan meel hoos loo degmay leedahay ma laga sii bixi karaa marka laakiin meeshan waa la arkaa okay ma gali karaa okay waxaa barooweynaya bartaan inaa galo waxaa soo fiirinaya godkan magac oo qaas ma leeyahay oo loo yaqaan ya godka walaalka gaawa okay godkan wuxuu noqonayaa markii ugu horeysay nolosheeda ee aa galo marka waxay ii noqonaya qayb ka mid ah history oo xifso doono waxay hogaaminaya qaar ka mid ah dhalinyarada xaafadan godkan I may ever ma galin today is my first day aan godkan booqanayo waxaa rabaa inaan soo arko jasiiradda yareed oo ay idin dhahay jasiiraddan waxaa ku dawaasho ragga qaybta dumarkana waa xagga marka xoogaa markaa gelideed waxaad dareemaysaa wax yar oo fiir ah laakiin maadaama la iga horeeyo ma dareemi dooni wax kaleeto oo fiir ah okay godku waa soo galay kaasa xoogaa dhalinyaradu way iga horeeyaan meeshaas waxa idin kaga muuqanayo waa biyaha badda waayo oo hoos ka soo galaayo okay ma laga sii bixi karo soomaan okay keedi okay inta istaagi karaa soomaan aad iyo aad asxaabeesa arki kartaan godka waa soo galay waa aniga hadda ku sugan gudaha godka waana markii ugu horeeyay jaranjaradana ku soo fulnay kuma soo galin wax doona kuma soo galin markaba ma soo raacin sidoo kale lugteeda ku soo galay marka waa kaas biyaha asxaabta qaar waxaa bartaan ku socdaan ilaa iyo gudahaas meeshaas aad ku quruxda badan saarki kartaan waa meel yar oo aad iyo aad qurux badan run ahaantii wadamada qaar goobaha noocan oo kaleeto markii imaanayaan dadka oo ajaanibta asaf maxaa la yiraahdaa dalxiis ahaan tourism dadku imaanaya waxaa laga qaadaa qarashaad waxaa laga sameeyaa income badan saa arki kartaan halkaasna waxaa yaalo qaar ka mid ah doomo oo retired ah doomahan oo ka shaqeey jiray kalluumeysi noocyadiisa kala duwan ama shabaag ama jeesto qaar ka mid ah waxay ahaayeen doomaha dalxiiska doomaha noocan hadda idin muuqdo waxaa loo yaqaanaa farboard afka qalaad waxaa jira matooro ku xiran matooro 15 30 40 60 saasay u kala baxaan 40 kawaal ama 40 kawaal oo kale saarki kartaan qayb ka mid ah biyaha dhexdeeda waxaa ka muuqanayo jamalada meesha malaay hela okay meeshaan waxaa laga helayaa kalluun sahday korka arkaynay kalluunka yaryarka waa laga helaa waana lagu dabaal karaa Soomaa aad iyo aad asxaabay muuqaalkan waxaa qayb igala ah qaar ka mid ah dhalinyarada xaafadan oo degmada Boondheer degan ma jiraan wax degmadan Xamarweyne degan adinka dhan waxaa Boondheer tin aad iyo aad asxaabtan reer Cabdicasiis okay marka muuqaalka qayb ay ka yihiin dhalinyaradan koos meeshan waxyaabo badan ay ka yaqaanaan oo information ah ayaga ay caawinayay in information-kan idin soo gudbiyo marka meesha waa sidan waa meel aad iyo aad u qurux badan waa arki kartaan xitaa waxaa meesha qayb ka ah noolaha badda ama noolaha ku loo yaqaano shimbiraha qaar ka mid ah ayagoo meeshan ka qaadanayo qutulyoonkooda asxaabtu maxay leeyihiin asxaabtu salaameysa Soomaa subscribe soo dhaha aad iyo inta meel dheer gaarsiiya ay gaalka ku dhagan ka fujiya aad iyo aad ina qabataan mar wanaagsan ina gaarsiisi aad iyo Soomaalidiin qawniya qawana marka gaalka ma qawana qof kale to qawanaya ma lahan koos
waxa aan soo gudbinayno ma ahan waxyaabo oo maalaayacni ah. Waxaan soo gudbinaynaa buildingka waddankeena si ay u noqdaan historic dhalinyarada ama anaga naga dambeeya jiilka naga dambeeya si ay waxyaabo badan aysan aqoonin anaga ay noogu sii faa'iidaan ay u bartaan. Marka waa mahadsantihiin. Muuqaalka hala la gareeyo, meel fog hala gaarsiiyo. sidoo kaleeto muuqaalka intaan ku istaagi doono waxay aadi doonaa qaybta xagge ee geel lafo. Marka meeshaan ma jirto meel kaleeto gudaha oogu sii baxaayo saarki kartaan. haddii aan dhahno meeshaan aan ka bixinaa waxay noqonaya inaan dawaalano kadib dameeladaas xagge aa furno. marka sidaas taas u dhicin koos xoogaa baa libisannahay, kaba baa buurna waa wadanaa, kabaa sidaasan biyo nooga gelin bartaa ku dhimaanaa ku noqonaynaa. goobaha kaleeto ayaa booqan doonaa la socda. okay. andiamo waa bixi kartaa wax isu soo ma aga dambeynay. okay good. okay. aniga u dambeeyo meesha ku jiro weli waxaa sameynaya inaan meesha ka baxo. meesha weli kasii baxaa bixitaankeeda xoogaa inuu adag yahay muddaa laakiin maadko koos hal gacanna waxaa ku hayaa kamerada, hal gacanna meesha ayaa ku qabsanaya. ekomi waa kanaa banaanka u soo baxay gudkana waa kaasaa dhalinyaradana oo ku hayaa ayaga iyo kabtan Shucayb. TikTok sidoo kaleeto Some Gold Wafers, YouTube-ka Some Gold Wafers, Facebook Some Gold Wafers kulli. YouTube wax ma soo dhigtaa iyo Facebook iyo TikTok ha saddexdoo soo dhigaa. okay ciao saa arki kartaan gadaasheeda waxaa haddana ka muuqdo qaar ka mid ah dhalinyarada cayaal xamar oo kalluumaysi halkan ka samaynayo. waxay wataan makaalin iyo fiilo. okay. muuqaalkan qaybtan koowaad waxaa ka dhigi doonaa baartiga kaleetana waxaa ka samayn doonaa geel laqe. saa arki kartaan meeshaan waxaa ka muuqdo Somali Port ama dekada Soomaaliya oo gudbi kartaa. gadaasheeda waxaas ka muuqdo ma ahan wiishash meesha iska taagan, waa maraakiib oo ku rakiban wiishashkii ay ku deji lahaayeen alaabtooda iyo sidoo kaleeto qaar ka mid ah wiishashka dekada ku rakibnaa oo konteenarada iyo wixii kaarguwa ay sidin ka deji lahaa oo saarayay gawaarida loo yaqaano trackiska ama treelada ama isjijada si u geeyaan goobaha markaas loogu talagalay oo in la sii gaarsiiyo ganacsatada. weli waxaa saaranahay jimilka weynaa ee Aw Xuseenka waa ku soconaa. waxaa rabaa inaad tago meeshaan kale oo gadaasheeda inaa idin tusiyo. waa ceenka waa meel aad iyo aad qurux badan. waxaa joognaa waa badweyn. meeshaan waa badweyn qofka ka boodo waxaa waaye lugihiisa dhulka ma gaarayaan. intaasoo baac ama intaasoo mitir marka badda la joogo dadka reer maanyada ah ama dadka oo badleyda waxay u yaqaanaan baac marka hoos loo degayo. dadka qaar waxay u yaqaanaan feet, dadka qaar waxay u yaqaanaan mitir. qof walba sidoo u yaqaanaa. meesha ka soo baxayay qofaa ku dabaalanaya hadda arki kartaan. halkaas waxaa idinka salaamaya waa kabtan Shucayb. ay kabtan aad iyo aad meesha ciao asxaabta waa kuwaasaa. ciao grazie, see you again. waa kaasaa positionka weli waa taaganahay oo qayb ka mid ah qaybta jimalka Xuseenka taaganahay. waxaa rabaa inaa gaaro qaybtan kale. qaybtan iyadana waa kana sidaan ay u qurux badan tahay. haddii aa kaamirada wax yar kala baxsho halkaas. This is a beautiful place or beautiful beach in Somalia, especially district of Hamarweyne. waxaa sameynaya in kaamiradu waa jeedina waa gudina si aa u aragtaan si qurux badan. okay. baka
meeshan deertid waxaa ku magacaabi kartaa sugunto liido deertidna waa dhihi kartaa rugo aad iyo aad asxaabay meesha hadaayay aad taagnaa oo gudaha jimalka hoosaa ka soo duuwaayey waa bartaas haddii aan soo dhaweeyo si fiican looma arkaa xoogaa waa mugdi laakiin bartaasay ahayd meesha aad taagnaa jimalkaas korkiisaa saarnaa marna koraa saarnaa marna hoosaa joogay biyihii aan arkaynayna waa kana waa biyahan doomihii waa ku haya weli sidii u muuqdaan biyo laqana waa taa kor ka muuqato